toddoba arrimood oo ay tahay in aad barato si aadan marnaba uga sheekeenin. Waxaan ku soo gudbinaynaa toddoba qodob oo ay tahay in aadan marnaba uga sheekeenin cidda aad sheeko wadaagga aad tihiin haddii aad doonayso inaad kula noolaatid naftaada iyo saaxiibada nolol farxad leh. Lambar 1 hantidaada gaarka ah. Guryuhu badanaa waxa ay ka mid yihiin calaamadaha muujiya hodannimada, laakiin ma garan kadhaa waxa u soo jiida xumaanta sida uu waqtigu u soo jiito waqti dhowrka. waa tuugada iyo kuwa doonaya inay ka qaataan wax kasta oo aad leedahay. Waxa xigmad ah in laga miro dhaliyo hantida guurta sida dahabka oo kale, balse waxa ay tahay in aad ka digtoonaataa waa indhaha xaasidiinta, kuwaasi oo doonaya hantidaada. waxaase garaad badni ah in aadan bannaanada aadan ka sheegin waxa aad adigu haysato. Lambar 2 mushaharka. si walba oo ay ahaato waxa aan marnaba sinaanaynin oo aan isleekaanaynin waa mushaharka dadka. mana fiicna inaad uga warrantid qof kasta mushaharkaaga, sababtoo ah waxa suuragal ah qofka aad u warramayso xitaa inay ku adag tahay helidda saddexda waqti. Lambar 3 mushkiladaha qoyskaaga. waxaa lagu tiriyaa u bandhigidda dadka kale mushkiladaha qoysiga ah sababaha ugu badan ee soo jiidashada khaldan leh. si la mid ah uga warranka arrimahaaga cid aan ku habboonayn waa arrimaha ugu badan ee sababa murugada dambe iyo qoys burburka. Lambar 4 diintaada iyo fikradahaaga siyaasadeed. waxa ay tahay kala hadalka arrimaha siyaasadeed iyo walxaha qofku uu aaminsan yahay waxa dhaliya doodaha ugu badan dunida, taasi oo sababi karta xitaa dil. sababtoo ah kala fikrad wanaanshuhu waa dab baxaya, dabkuna uma baahna in baasiin lagu sii shido. Lambar 5 siraha dadka kale. inaad fidiso sir uu qofi kugu aaminay waa waxa u xun adiga shakhsiyadaada iyo qofnimadaada, waxaana suuragal ah in xiriirka qofkaasi idinkala dhexeeya ay u noqoto fidinta sirihiinu boog. Lambar 6 wixii aad sadaqaysatay. sida uu inoo sheegay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam oo ah sadaqada tan ugu khayrka badan inay tahay taad ka bixiso midigtaada oo aanay ogaan waxa aad bixisay ama aad sadaqaysay bidixdaada. si la mid ah ma fiicna waxa aad baxsatay in aad magac iyo hadal aad ka doontid. Lambar 7 qorshayaashaada mustaqbalka. ahow qof wanaagsan laakiin ha noqon qof aad iyo aad u wanaagsan. u qorshee mustaqbalkaaga inaad gaartid halka ugu wanaagsan, laakiin marnaba ha u qorsheen naftaada inay uga hadasho qaabka ugu fiican. waxaad samayn doontid, halka aad mari doontid iyo qaabka aad u samayn doontid. guushu ma ahan hadal, balse waa qabashada hawlahaaga. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deena ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.